السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودايا شقيمها هي قدرينتا مدن oo kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku wareystay Maxamed Cabdi Raabi Ugaaska oo ah wiil dhalinyaro ah sameeyana riwaayadaha isla mar ahaantaana jila riwaayadaha uu sameeyayna waxa kamid ah riwaayadii tahriibka iyo riwaayadii sigaarka ama shiishada riwaayadii u hili walaalka iyo riwaayadii Fadul Aadmi oo aad daawateen baraha ay ku kulmaan baraha ay bulshadu ku kulanto sida Facebook iyo YouTube-ka Cabdi Raabi ku soo dhawow barnaamijkan gaarka ah ee maanta kugu marti qaaday rabana inaan ku dul istaagno adigoo ah arday bartay cilmiga saxaafadda isla mar ahaantaana u bayray dhanka riwaayada sameynta ama jilida filimaanta urinta aflaanta Cabdi Raabi oo barnaamijkaas gaarka ah oo aan maanta arinta ku faaqidayno ku soo dhawow gacmo furan waan ku dhawahay afkaada Maxamed aad iyo aad baan ugu dhawahay adiga mudan Maxamed Cabdi Raabi su'aasha koobaad ku weydiinaya waxay tahay bal maxaa kugu curiyay in aad noqoto qof sameeya riwaayadaha iyadoo aynan xirfadaada ahayn oo sida aan dareensanahay xirfadaadu ahayd mass media ama saxaafadda kale dhinacyaheeda badan sida sawir qaade tabiye adiga oo barashadaadu ay waxaas ahayd xirfadaada maxaa dhankan aad u badatay jilida flaanta iyo riwaayadaha kugu dhaliyay horta waa mahadsan tahay horta waa sax sida ka dhawaajisay waxaan ahay wariye oo bartay dhinaca qaybta saxaafadda oo bartay ummadda Soomaaliyeed wixii markaas ka duldareelo kaga jiro ama sakadaasoo inuu u soo gudbiyo laakiin markaan fiiriyay dhinaca saxaafadda iyo Soomaalida saxaafadda sidee ugu bateen waxaan dhinac u leeqay markaan fiiriyay ummadda Soomaaliyeed war kelima deeqo waxay u baahan yihiin filim qancinayo ka sheekeenayo ha noqoto wax dhacay mise wax markaas jiro oo socdo oo markaas Soomaalida ama ummadeena Soomaaliyeed ama ummadda muslimiinta guud ahaanba matalayo wax markaas jiro okay riwaayadan waxaan maalin dhexdeed maqlayay adiga oo laga wareysanayo BBC laanteeda afka Soomaaliga riwaayadan tahriibka ay ka wareysanayso riwaayada tahriibka ama adiga sameeyay mise qof kale ka caawiyay sameynteeda oo riwaayada tahriibka aniga sameeyay oo waxa nimanka ay u dhashtay laakiin waxa garab u siiyay oo markaas la qabtay saaxiibkayga Dalla Maxamed waxa jirtay riwaayada isla Dalla wada jisheen oo sigaarka ama shiishada adiyadana kaga wacyi gelineyseen dadka صح وصحته وجرتا سيجار كيشيشة أو مركز مدينة سومالية عاد وبتين أو سيجار أبو إيكو سيجار كأبو قرين هاي وانين أو سيجار كده أبتد أما استلماشي يعني دقنين مركز وحياة وعذر مركزات كلا كل ميسيد ومدي ما في إيكو أركايم ذيك سيل الإعلان أو سيجار كيسكعب شيشة الناس كودان شيشة نفتي كده في رصيد وحلمتها هاي هالمرة شيشة أجيدو وحلمتها هاي أدوه باكت سير نميسو باكت سيجارة هاي marka umadeena ma fiirnaa taas waxay fiirinayaan hobigooda iyo wixii markaas ay qancinayaan kadib ani saaxiibkayga Dalla maal wuxuu dhahay maan dhigno riwaayad ka turjumayso sigaarka iyo shiishado markaas waxaan dhahay sidan u dhigi doonaa ama umadeena Soomaaliyeed soo muuqaalaan ugu soo gudbi karnaa kadib waxaan guda galnay inaan ka dhigno wiil yar oo aabiis waaninayo kana waaninayo sigaarka iyo shiishado isla markaasna hooyadiis ay u dhimatay sigaarka iyo shiishado cunuga yar marka waad ku carbiseen inuu qaab u jilo inuu Maxamed Dalla uu yahay aabihiis oo uu kor istaagayo oo isagoo jiifo qufacaya uu iimaanay wiilkii iskuul ka yimid qaab fiican baad u sameyseen jiritaankeeda duubida yaa lahaa duubada waxa lahay inaan wiil muslim oo yani dalka Kenya duubay oo Maxamed Otewa lahayo atooraha waa Dalla Maxamed wiilkiisa oo marka riwaayada knowledge line wiis waxa lahaa liibaan marka intaas anigana waxaan ka director markaas ka qayb galay qoritaanka iyo codadka markaas baxayeen ninka cod ka mid duwanahay okay waxaan igu maqaalaha inay qoladan British American Tobacco waxaa jirta British Tobacco Company ka xumaatay hadii ninkaas businesskiisa marka farlasho wax baad kala kulmaysaa waxyaabo yar baa jireen kadib waan xalinay oo ahayd in dhahan
wacyigelintan aawadin kasoo leexdo meel kale u leexdo idinkoo riwaayada jilaysiin laakiin dhahayaan markaas ka leexda bal dhinacan. okay cabdiraabi waxaad tiri dhankii saxaafadda inaan dad war u gudbiyo waxaa igala qurux badnaatay inaan ficil ahaan iyo filin ahaan wacyigelin ugu gudbiyo ma dhigtaa ama ma samaysay weli riwaayad aan wacyigelin hadda tahriibka u heli walaalka sigaarka waa wacyigelin riwaayad aan wacyigelin ahayn oo ama jacayl ah ama qiso dhacday oo dhab ah adigu wax tilmaamaysa ama siyaasad ah ama ma dhigtay weli siyaasad ma dhigin laakiin riwaayad jacayl baan dhigay oo ku saabsan wiil Soomaaliyeed riwaayad ana aktore ka gabadhii ila dhigtan hodan baa lahaa waxaa kaloo riwaayad lagu jiro saaxiibkayga Saabir iyo asxaabtii markaas ila joogtay kulli oo groupkayga oo markaas iga qayb galeen riwaayaddu waxay ka turjumaysaa riwaayadda gabar walaasheena noo soo gudbisay kadib anaga dib u qornay u habeenay qofka markuu oraada ku dhaho waxay noqonaysaa wixii adina qorto oo siimankeeda iyo markii sidoo baxayna aad guda gasho riwaayaddu waxay ka turjumaysaa wiil dhalinyaro ah oo gabar jeclaaday oo Facebooka aalada Facebook ka jeclaaday sawirana isku direen wiilku waa curyaan laguma qabo lagu curyaanku Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u dhaliyay kadib jacaylkii iyo meeshaas iskala haasaawayaan balan bay wada dhiganayaan inay isguursanayaan kadib wiilkii gabadhi way isjeclaanayaan yani waxaa markaas wiilka jacaylka markaas ku batay oo jacayl gabadhiisa u jeclaaday way kulmayaan marka waxay leedahay aan kulano maadaama aan is arkin si fiican aan isku aragno kadib way balaminaysaa gurigeeda hoostiisa ku balaminaysaa marka kadib wiilka saaxiibkiisa ugu caaya wuxuu dhahayaa saaxiib nakeen iwad gaari iwad igey gabadha wiilku wuxuu dhahay ma u sheegtay gabadh inay xuryaan tahay wuxuu dhahay gabadha sidaan ima weydiin oo dhihi horta waxyaaba qof markuu ku weydiiyo su-aasha ugu jawaabi karta ima weydiin laakiin waxaan dareensanahay gabadh inay bini'aadanimo taqaano kadib wiilku wuu soo wadayaa gabadhii ayuu u keenayaa oo meesha idin gabadh saaxiibteed markaa la socotay gabadh saaxiibteed waxay leedahay marka wiilka sawirkiisa ka soo socdaa gaari lagu wado ma ay leedahay ninkan nin curyaan ma nin aad u qurux badan waay curyaan hadda uma qalmin ninkaas curyaan ay gadhiin kadib iyada markaas way muuqaalku waa soo dhaweeyay gabadhana shiishada si fiican u saartay aalada oo si fiican u fiirisay markay soo dhawaado ay gabadhiyaa marka adiga miyaa leedahay haa curyaan baa ahayd haa oo maxay u sheegaysay adima ay ugu toolaalaya taasna ma maleynaa inaad tahay u niciis u dhig adu curyaan intii u geenay leedahay marka waa naga tagay leedahay iyo dhaqaaqa ay sameysay movement-ka dhaqaaqada iyo wiilka ka daba dhaqaaqa dib u dhacaya waxaa qabanaa garab siinay gabadhii markaa la socotay iyo wiilka saaxiibkiisa soo saarayo wiilka saaxiibkiisa xanaaqayo oo markaa Saabir ahay ku xanaaqo wuxuu dhahay marka saaxiib iska dhaaf waan jeclahay gabadhii kala qiiroonayso marka dib bay u soo noqonayaan guriga imaanaya gabadhii soo daba kacayso iyadoo markaas ka naxsan oo qiirada gabadha saaxiibteed ay sameysay tii kale ee saaxiibteed kadib guriga imaanaysaa guriga soo gasho dhiyaa guriga soo galay iyo gabadhii waa gabadhii hadda caawinaysa gabadhii fiicneed buu dhihi way soo fidhisanaysaa waxay leedahay marka walaalow gabadhii saaxiibteed si ay ku gashay baan ku xumaaday waxaan aniga ahaanteedii ku dhalatay inaan ku caawiyo maxaad ugu caawin u dhihi inaan badelka saaxiibteeda ku galo iyada waxay leedahay badelka saaxiibteeda inaan ku galan rabaa kadib riwaayadda siday ku dhamaanaysaa oo ahayd in gabadhi bedeshay okay marka gabadhaas waa u heeli walaalkaas riwaayadaas waxaa la dhahaa waa jacaylka ah tii jacaylka waa tii waxaa jacaylkan ka sheeganay magaceedana waxaa la dhahaa riwaayadda magaceedu magaca u bixinay waxay ahayd magac baa jirta u bixinay adiga waxay ka turjumaysaa qofkaas curyaanka ah ee maxaan ku dhahay social media la iska bartay iyo bini'aadantinimada ay gabadhaas samaysay okay riwaayadahaagu ma dhaadheera way gaagaaban yihiin ma jiraan heesa iyo waxyaaba aad ku dhex dardarto oo aad caddayn uga sii dhigto ficilkii dhacay horta waxaa jirta riwaayadan soo wado oo magaceedan ugu magac daray Fudul Aadmi riwaayadaas waxay ka turjumaysaa hees oo hadda u qaaday abwaankeena Soomaaliyeed oo Somaliland joogo Arshe heesta u qaaday ka turjumaysaa sidaan aragnay oo iyadana ninba ana hagaajiyay oo markaan heesta qoray riwaayado baan u bandhigin abwaane wuxuu dhahay muxumo waa riwaayad isku dhameystiran riwaayad wuxuu imaantaa kuu sheegaa marka aniga ahantinkii u dhalatay nin saaxiibkay ay soo wacay wuxuu dhahay xaaskii baa isku dhacnay waxaan dhahay maxaa iga rabtaa marka xaas ku dhacday niyo kaalin dhexdeen galo bal hadal kaalay midna waxay ku leedahay ifro
كو بس وان كعي وحن أباري مركز صاحبك يقوليسو وان أتجي وحن هاي دمشي بلادك وقدمها محاجره إن كان هذا الكيس يقبض بطي إنه يفور الربع كو أساس بها ها أوكي واي عند مركب هدوك فرايو وأديك عصتي بلا سوي دينا مركب هاي بس محنا اليوم وقنا سيدا قبل ما دام يقول هذا يفور إنه وحي أجرو أو شكتي إذا وقنا سيدا وحي أبا قرسني زي شيء مركب إذا وحي قرسني سا مش شيء مركز فرتان بيرتا أساس بها هيو لا مركب فرايا لكن مدوق عيسيسو كده أسكت مننا تلاقة سيناء هيو لا مركب سيدا مسوق على تغني بس قبل يا مركب ويلك هو بحي قبل أنا وحنا مركاني والله هذا مركب أنا ولا لي قولي إن الدمسو معقول ما هتوني كان نعب يعني مرة كفر لا أنا ما نبغى دلعات وسيد لها هذه إنه يقول ربوك جعلي واحد رميس يعني وجيني سو وعتان كان يوعي إنه يقول سيد سنة وربع يعني ما حتى من يسوي شيء حيل هذا كان هذا الكيس يقبض بطل كو ما حاجره كان قبل سحبتي ذو يقبل بدنا إيش شجعان حيل هن كذي لا قبل مش بعد هذا كو وده ما خكرين وون رأينه جوسده بس أنا بروح واحد جرو له مياه هاي ده مركب أوكي واي عندنا مركب بس سيد المركب ده هاي قبله ما كان ده مكوبتها المركز أنا وح يعدد مركز أصلي هاي وحامي وحبريين هاي لأني ساعد كي وان ولا يرى مو ده كرتو مدي كرتو مو مش كان صناعي بين شيء كرتو أديات وحنا مركز دي بي رسول تبيه وركان هرن أو مركز لو شيء جت هاي وحنا وحكوا هبون ده كسي في استادني هاي مركز هاي ده لي وكفر سيدارتي إذا وسوا وحكوا ذاك تيني كفر ستي أنا وحنا بكسي في استاد هاي مركز كسر تجي وحافظني مع المركز وحنا مركز فكر يعني يقول علي كفدان ما بين لو شيء ما بين لو شيء يعني أرنتان أميتا أرن صاحب هذا بين لو شيء يعني بس وان فكر مكاني قرال بقري مرة وان قري الله هايو واحد سمين يسوع حتى هذا كفير سنين فعلاه ودعيان هذا البط كقومين نساء يعني هدو مركي أرنت إماتو إني أرنا كفوضات يتاهي قومين باتكيني ما شاء الله مركان قري أنا صاحبك أدري أنا قبل مدري كرو صاحبك هو آخري ما حد كود داويري وحنا فعل ذا وفعل جيراننا كفير سو ويابي ويسوعي كرو ويمالي حدني وحبا كاسو بهاني ما حد كود دا نو حنا يحاس كذا مركان رياضة دقيستي أو عن كترامي إن دعنا بدنت إن دعنا بدنت هاي أذني وحبات قرني سنتاي إذا وحبي قرني سان كو إذا وحن كتر سنة إني كام بسير سنتاي أو تمر بدن يكون تميسو يوم حجر يشك صح نقولي يعني قبل مش كان صدق شو كان صدقني نيو أنا وحن في كان صدق واسك عادي من ده مركا مو بتان هذه وحياة بدو لنا بدنا تسكوهن هاوي ده مركا بس عندما هو إيش جاي وحياة ناي سيدا مقالة تغني أيام ما كده معلق سحيوانا يسوع مركا وحيدها مسجدك أو صوقرتي صاحبك أيان أركي وحيو صور دعدي يقولي صاحبك شان يكون دعدي حاس كيس أي كلا تجال وحنا كلا تجال قربيه جوتا ويصوّع عضي وحيكون دعدي شيء كذا هذا وحيسو قد بسي قف وين أو أكو كرسونا حي إن الناق قبصرك وقبطه أما الضمر أد قبصرك وقبطه قبط سر مع نيجر ميرحد هاي أما كي بيمشوا لغلوق قطقط لغلوق قال هنا كم مستير متوا سلدون عمل هنا هو قبطه مقع الله إلى قطقط على قطقط هاي حدي أنت حقيقي بقى كهرني أنا ذا كان ضماني كو أنتي بيكون مقنعين المدير هاي محل سوق هذه إنه حبك جري إنه حبك جري هاي لكن قبل يبدي رجع أكو جرتي هذا ولا يفرق يعني قف كاس وين بين شيء جاي من سنتين هاي وأنا فكر مرة وحنا هنيو لو مل بعد ولا لك هاي بعدين نين وأنا أتقان صاحب كاجا نين صاحب كاجا شيء كي نيو هدات فكرته وتواعد كدكتو سو كهما حبانو وأمة الصومالية waxyaabaha kala geenayaan aad tusiso inay waxba ka jirin waxaan ku fikiray marka riwaayad inaan ka dhigo laba qaybood nin dhalinyaro Soomaali ah oo xaaskiisa ku kalsoon
oona jecel oona rabo mustaqbalka iyo horaantiisa uu ka fikiro laakiin waxaan ka dhigayaa gabadhan iyo wiilkan jecelkooda waxaan ka dhigayaa markii inay is jecel yihiin oo guur kadib ay isjeclaadeen kadib riwaayadtaasi aan u rabaa weli laakiin riwaayadda maana dhigin waa riwaayad jacayl ah waa riwaayad jacayl yacni dadka isku dirkooda iyo waxaan ugu magacdaray faduul aadmiga dee fuduulka ma weyni xantoodii dhibkoodii waayo riwaayaddaas marka riwaayadda aan soo wado waa hadduu ilaahay idmo insha allah aan dib aan ku dhigaa su-aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay ninka la yidhaahdo cabdi raabiow qoridda riwaayadda marka hore way kugu soo dhici mar labaadka waad qoraal baad samayn mar saddexaadkii in la dhigay noqon soo maa dadka dhigaya xageed ka hesha ma koox baad ka tirsan tahay ma koox baa kuu samaysan yaa kaa caawiya in lagula jilo dad badan bay u baahan oo ruuxba uu position haysto horta waa runtaado kolka hore markaan anigii iyo saaxiibkayga dalla aan guulgaday labadan keliya ahayn waxaan ku heshiinay inaan soo dhigno riwaayado oo wacyigelin ah oona soomaalidii ama ummaddeena soomaaliyeed wax u tarayaan ama wax ka reebaya ama wax faraya markaas ay wanaag u tahay kadib saasay u ahayn waxaa nagu soo bireen waxaa nagu dhalatay markaas tahriibkaa soo galay riwaayaddii tahriibkaan dhignay riwaayadda tahriibku waa riwaayadda oo nagu aan dhihi karo waa nagu saameyn badneed aan dhigno riwaayaddaas waxay ku imaatay anoo maalin anigii saaxiibkay dalla inaa afurnay guriga aan joogno ayaa waxaan daawanayna marka baraha bulshaha kadib laabtoona kala furnay waxaan iska daawaninay waxaan aragnay soomaalidii oo tahriib ku dhamaadeen oo hadda daftii magafa haysto oo dhibkii rafaadkan ka aragnay waa ka qeyrooda markaani saaxiibkii waa iga tagay aan dib markaa guriga usoo noqday oo saaxiibkii dib waan baxay waan soo noqday kadib waxaan gudagalay inaan wax qoro sax أول واحد بنقول جري مكاس هبين بوح بس يعني سكو جري وحن جودو جري مرة إنها سمير رواية تهريب كده والتهريب كتبت كشكينا كتب وحن قري هذا سيدا برا بشر لو أركي مكفيان حاجة أو دايرة سكو عيان هاي نيو أنا مركز أنا سرك سحبيتين وحن ورواية وعي جنينه aan gudo karno aan wacyigelin sameeyno riwaayadu waxay iga qayb galeen dhalinyaro oo markaas oo ay kana joogaan qayb kamid qurbaha oo aan wacnay ay saaxiibka yani baraarujinayaan ee dhahayaan niyo meesha Afrika wax ku maysid ninka saaxiibkaaga markuu qadku wax soo geliyo ama Facebook soo geliyo 5 qof waxa hela snapkiisa oo kala kacsan yahay niyo soo baxa qurbaha kasoo imaaw oo kasoo tag Afrika markaas ninka wax ku dhalanay saaxiibkayga oo markaa filmka tooraha ka dal ay u dhalanay inuu baxo وقبحته وحنا مركا أنا وحنا مش هنقصه بدي نقف فلاني نبرة صدرايا نكاس وعي دايان مركا نكاس أنا أجيلس كجيلني أنا قبل أحد اللي نسميه روايده تدي محادقني هبكي مركز ومكفاه يصير كله تريبيو أيان سمعني مكروايد وروايد مركز عندي كان مدين سومالي تحت حول waxaan wax yar daawad-siinaynaa qayb yar oo kamid ah riwaayadii taariibka iyo qaybka qaabka ay u sameeyeen ama u jileen Cabdiraabi iyo asxaabtiisii daawashaha boon waxaynu isugu soo noqon doonaa gabagabadii iyo su'aashii ugu dambeysay ee barnaamijkan السلام عليكم ورحمة الله دال منوشة لا إله إلا الله هرت أركوريك دالوا والله نيروبي اسلي حبيبي والله خبتي سناب شاتك الله خبتي واكنا دال سناب شاتك واكنا على كل حنيو كان نيروبي ما دكتور أنت في نيروبي لا إله إلا الله كي دال هالشيء حمى هاي والله هالشيء حمى دال صاحبتي وحاجة دكتور مش أنا كاتك اللي يقولوا دكتور نيروبي دكتور صاحب دال هالشيء هو شغله صاحب سناب شاتك جورجي افريكا سناب شاتك جورجي يا انت كسوق لندن الجو صاحب لندن انت لا قاربه صاحب جورجي افريكا سناب شاتك صاحب معنا دالا وسلامه دالا صاحب سلام يا بتوك سلام عمران باي لجوga صاحب ninkan iyo ragib badnaa صاحب la baashaal jirta dhan صاحب meelahan iska baashaal ma garat عمران ninka صاحب niyo waalid sawiranta sabirsana mugta wallahi way ka taalaabtay والله كاتلا صاحب رد أبو شيء مكتوب سياسة ماشي نيو سياسة صاحب ماشان شيلن صاحب رجعنا تليرت صاحب يا نكان صاحب وحنقول والله صورة دوساس فيسبوك سوقي 5K فحم مقرد مركب حنقول إلى صاحب إنه ما بتنلا باشال يا نيشنا نقول صاحب ملا ده سكيما ده دالاس كتير وكوجا صاحب عقب سكيم فيمس بس كنا مرة صاحب مقرد بدك البرادة لأن حنقول إلى صاحب لأن أرنت تهريب كني هو مغلي
نيو هنن مخلص باقانا أو شدن أو لير هذا عبد الرحمن ديرة في لا صاحب عبد الرحمن ديرة سمين ماشكو فديستا صاحب نكاس كوسو حارين نكاس كوسو وإن أنت لضد صاحبتي لقاتها عبد الرحمن ديرة أنواع عاو سلا مشى وتهريب لها نورلكم هيست أفريقيا فيسبوك سناب شات إنا كشد ويوبلن نمبر كيس عبد الرحمن ديرة صح عبد الرحمن ديرة هلو عبد الرحمن ديرة ميا صاحب ولا لو دليرو بايوكا سو حرو waxaan u baahanahay inaan tahriibo ها ولا اوكي انا ku soo wacayo meesha ay guri ma ku dhacayaa dib iimaanaysa adoon arinteena qoflo u sheegin hadii ka go'an inaad tahriibto waa iga go'an tahay walaalow aniga u baahanaan tahriibo اوكي انا ku soo wacayo marka ku soo wac telefoonka iga qabo qofna u sheeg arinteena waay walaal way u ballan waayay الو يا ابني اسمع انت وينكم طيب تاخرتوا يا اخي طيب اسرع بس بلا كلام فاضي اللي عندك انا عند الباب خلاص جيت انا والله يلا قبل حاجه خير ان شاء الله جبت لي هذولي تفضل طيب نزلهم هناك الحين هيا انزلوا بسرعه يلا ستة منهم خلاص اوكي خلينا نشوفهم الحين شوف وجهك انت منين جيت انت؟ ايش جابك هنا انت؟ راح ناخذ منك فلوس ولا عليك ان شاء الله مسوي مسكينه انت يروح يا ابني روح انت اسمع ايش جابك ترى حاخذ منك فلوس ولا عليك اوكي هيا روح انت ومين هذا الحلو مسوي والله شكلي حتزوجك ممكن اشوف وجهك انت حلوه روح لك انت والله شكلها كيف يجي منك اسمع انت اليوم ابغى انام معاها هذه البنت خليها تروح على جنب ابغاها ذي والله حلوه ترى راح اتزوجك ان شاء الله روح هناك اسمع عندك ارقامهم صح؟ عندهم اسالهم طيب ابغى ارقام ايوه ايه اسالهم بسرعه يا اخي انا ما عندي وقت ترى هسه قام خليهم يطلعوا الارقام بسرعه ما عندي وقت انا tahriibtii hawlaheeda kunbaa tagtayoo la waayay waxaa tima dheer ku dhacay miyaan taariikhdu qorinin maxaa 10 jiroo huleeloo tihiir ka qaaday kuwaa tacab loo afduubay kuwaa lagu tumay jeelka miyaynan tacaabu haynin miyaynan talo u haynin miyaan dhalinyaro tabaynin miyaan toos loogu ooyin tacaddiga la hoolin waayay wakaatira behelay maydku tallaabadu qaar ku waayay waxaa tabar yeeshay nacaskii kuwaa tabar behelay socodkii hooyadu taag ay u weyday kuwaa tolkoodii meeyey miyaynan tabar u haynin miyaynan tacaab u haynin halo mii maqashaa gabadhaadi waa la haystaa magafa haysto magafa gabadhaadi haysta saad ku soo fakin leed ku soo faksa
liibiyay joogtaa gabadha ay magafa haysto $8,500 baa loo haystaa haddaad soo fagsanayso soo fagsaa haddii kaleeta waxaa waaye wuxuu yidhi ninkaanaata magafa la yidhahdo waa farax xumeynasaan doonaan ka yeelnaa okay haddaad rabti inaan wax lagaa yeelin lacagta la soo dhaqso $8,500 la soo dhaqso 4 maalin gudood 4 maalin اسمع انت اربطهم يا اربطهم بسرعه اوكي اربطهم yaroo tabaynin miyaan toos loogu ooyin muxuu magafahee tanaaday dumar tabardarii ku liicay tirtiira uu ku tuntay miyahii bibisiidu tabinin miyaynan tacaabu haynin miyaynan talo u haynin miyaan dhalinyaroo tabaynin miya aan toos loogu ooyin miyaan dhalinyaroo tabaynin miya aan toos loogu ooyin muxuu magafahee tanaaday dumar tabardarii ku liicay tirtiira uu ku tuntay miyahii bibisiidu tabinin miyaynan tacaabu haynin miyaynan talo u haynin miyaan dhalinyaroo tabaynin dhalinyaroy dhaqaalaha lumay dhoofkaad ku raadinaysaane dharaar iyo habeen waxaad idid ka siisaano tahriib laguma gaaree waa inaad dheef ka hanataane geel haddaad leedahay oo dheesna ku ogaato waad inaad dhaqaalaysataayo dhinacyo joogtaaye wardihaal hadday ay gasho dumarow dhiil qaado dhug iyo cadhayo waa in ay jeel u dhimataaye iyadoo dhukaansho dhurwaa dhaxal u yeeshaaye mar haddaynusla garannay aniguna garwaaqsadaye gaddeennu waxay tahay inaan tahriibka joojinaayo dalkeenna aaminaa dhallinyaroy isku soo noqod wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo qaybtii labaad ee waraysigeennii iyo su'aalihii ugu dambeeyey ee dabayaaqada ama gabagabadii barnaamijkeennan aynu ku waraysanaynay jilaaga da'da yar ee Soomaaliyeed maxamed cabdiraabi ugaaska cabdiraabi su'aalihii waxaanu joognaa qaybtii gabagabadii barnaamijkeenna su'aashan aan ku weydiinay waxay tahay wax dhibaato ah weli ma kala kulantay qaabka riwaayadaha jilidooda ama sabayntooda ama wax oo kaaga hor yimid oo caqabada ama jiraan horta caqabo oo saa weyn igama hormaanin laakiin mid aan la yaabaa waxay tahay intaan riwaayadaha sameynaya qoray ayaa waxay la soo xiriirin Soomaaliyeed oo isoo wacay telefoonka ma qabanin Facebook oo igu soo wacay kadib caadi wadani labaad dhahay saaxiib waxaan u baahanahay inaan kula kulmo sidaan ogahay waxaa joogtaa dalka Kenya gaar ahaan Nairobi Soomaalina waa joognaa wiilkii waxaan dhahay marka masjidka fariinta isu diraan u gudbi waxaan dhahay okay waayahay ma wax dhibaa jiro wuxuu dhahay niyo dhacdo anigu dhacdaan hayaa inaad riwaayad ka dhigtaan rabaa hayaan dhahay waan kulanay markaan kulanay wuxuu dhahay wax markaas aan ila yaab noqday oo aan riwaayadna ka dhigi karin uu ii sheegay dhacdada markii lagaaga sheekeeyo qaabka aad u dhigayso way ka duwanaanaysaa qaabka qofku u sheegay adiga marka waxaad u samaynaysaa qaabka marka adiga baash iyo dhan waa bedelaysaa marka wuxuu dhahay qaabku ii sheegay xataa ma bedeli kartaa uu dhahay maya dhahay riwaayadan bataatan lama dhigi karo riwaayadda haddaan kaaga sheekeeyey qaabku ii sheekeeyey kollo daawayaasha qaar baa la yaabi doonaan waxyaabaha ku jiraan wuxuu ii dhahay niyo waxaana deganahay walaalkayga guri walaalkay oo xaaslan guri la degana laba qol baa guriga qol waxaa degan asiga xaaskiisa qolna anaa degan fadhigana markaas uu dadku ka dhexeeya marka subax waxaa ka mid ah ayaan wuxuu dhahay riyooday ana riyana waa ila tahay runna waa ila tahay u dhahay waxaan ku riyoodo dhahay anigoo jiifo oo dimaashideeda qolka ii soo gashay markii qolka ii soo gashay baa bustiha ila gasho dhahay kasaa waxaan dhahay dumaashi maalinta walaalkayga joogo walaalkaa ugu baxa shaqo aadee dhib ma lahan waxa waa iska caadi kadib
waan yaabu dhahay marka xisho meeshii wuxuu dhahay iska celi hay meesha isku rafaan dhahay hay wixina waa riya riyana way tahay runna way tahay asi wuxuu taagayaa waxa in runta in riyada uu ku wareeray laakiin waxaan aaminsanahay in riyada uu dhahay kadib hay markaan gabadhii ma isku way kasii soo tagto dhahay isku rafaanay ka soo tagto dhahay kasoo baxay dhahay maadaama waxa jira matiiday baadi xun baa tahay waxa wax dhinta way quraanku keenay sugay dhahay wuxuu dhahay war eerlaanta noogu u maashii abnaanay maxaa adigu shaqo jaamaysa u dhahay sinuu hadal buu si kasii daba dhahay way baxday quraacdii soo wad iyo kale soo qaaday marka ninkan uu jiifay iyo dimaashiisa albaabka soo furtay oo quraac wado iyo riyadii asal kumeen wuxuu dhahay dimaashi waxa marunba ha quraac ku soo fadhiisay dhaamar uu maxay ninka marka wuxuu iska dhaadhiyay wixii dhan ee dimaashiga ku sameeyay wax jiro quraacdii waa watanbo wixii waa riyo oo ninka riyona runna way la taawtay widi wasi daadagay marka waa sheeko kale ana waa yaabr wuxuu dhahay quraacdii aan cunay waan soo baxo dhaanay xatay magaalada soo aaday nin baan u wacay saaxiibkayga ana saaxiibo saan baa u dhacday wuxuu dhahay tasta walaalka u sheegay dimaashida habla furo waaba waxa la yaabay iska furo walaalkaaga diinaas mariyo haye ma gabar saan dhaqmaysa walaalka qabay ni wuxuu dhahay wixii mariyaa u dhaanay saxaabo waa u sheegay saaxiibkayga شعبي وياوي وقو أصل ويلا وراني هاي بحكي لك كلام تقولي نيو هرت وحده أنت قدام بيسوات وابرم بيجي أنا إني مركي إني إجت الزباشيد وحاجات تقرأ بقول كيني قرأ الوالد كيني مركي مويدي وحنا جمعش وحنا رمبا ها ورمبا كان قرأ عمين هذا لكن هو هردوي حريوها الباب كفرتان كيسو كتوصي الباب فرنتو كتوصي وحكى عسل كان وجه وراني حسنا وحده قايب نوارون قايب نواريو way dhacdaa waa laga yaabaa okay marka iigu sii socday barnaamijka ku sii socdo saaxiibkiisu uu wareerto wuxuu dhahay niyo waxa murumba maswariyo u kala garan waay niyo wuxuu dhahay tii eron ka tahay saaxiibka walaalka unax gabadha ka qabo adiga insan ku qof kale insan ku sameeyo doontaa ka qabo ko wuxuu waa soo noqday guriga nimaade waxaan u socdaa inaan walaalkii u sheego arintii markaan abaar socdana riyaa arki runna waan arki riyana waan arki waa isku dhaxwaashtu yiri haye waan soo baxay waxaan imaaday gurigii walaalkaygaan salaamay oo aan soo fadhiistay waan dimaashidii arkaa dimaashidii ma fiiri karo laay haye markaan fiiriyo waan ka xishoonay haye marka cashaan la siiyay waa cashiyay markaan cashiyay kadib waan seexday subaxii waxaan u tago dhahay nin markaas aan qaraabana nahay aan u tago dhahay waxaan ku dhahay niyo arintaas ay u dhacday xalna waan u laahay ninka saaxiibkiina wuxuu u dhahay walaalka u sheeg niyo mana jecel man rabo guri inaan dumiyo maxay u taleed wuxuu dhahay disaas tahay niyo wuxuu dhahay arintan inaan u fadhiisano anagoo markaas dhalinyaro aan ka hadalnaa kadib aan falanqeynaa niyo wuxuu arintaa bunbuunin waa arin family hana bunbuunin niyo arintaa maxaan ku sameeyaa haddii runta isna wuxuu dhahay walaalkaaga ka fur xaaskan gabadhan ka fur iyo holaalin in yar baan ka dhaxgali waxa jirta horta waxaan dadka riyada ugu yimaada ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado waxaan dadka riyada ugu yimaadaay waa shaydaan ma wax jira marka shaydaan baa ninkan riyo ugu yimid shaydaankuna wuxuu ogaa in gabadhan ay quraac soo wado wax yar quraacda ka hor buu ninkan riyo ahaan ugu yimid gabadhi iska dhigay isugu de wax ruux iska dhigay oo laazim kolkii qofku uu riyoonayo qofkan wax riyada ugu yimaadaay suurad dad buu leeyahay shaydaankan waa suurada dadku iska dhigaya marka easy bay ahayd tan inuu ogaado qofku hadduu jiifo albaabka furdeeda ku toosay wixii hore inuu shaydaan ahay gabadha isaga dhigay wax la isku sii wax ismayn haye ku wareeray kan haddii uu iska dhaadhici waayo dumaashidii su'aashoodu waxay tahay waxa marunba ha warone kala quraacay dhahday هذا مرون بقى قبل القراع لو كان تقول قراع هذا بيقول واحد عصب قراع ونكان ها بس واحد على كذب أنا بقول شيء وخسرت كمان نكى يعني كل واحد فملي وحياة إنه قرقي نوارن سي ويني وربي نكى هذا أسابر رجعنا نوارن سي ويني وحط كمان كانين أي سحابين كو نكى سحابين قبل أن المهدرين هي
wuxuu ku dhahay niyo wuxuu dhahay nin heblahay mataqaanaa waa kor kaaba ka tiin ha marka haye neefs baa ku dhacdo uu yaabin yahay gabadha walaalkiisa qabaasaa ku sameysay waay asigu wuxuu ka dhigay markaas inay gabadha wax sameysay life ها والرياضة اسكولي وارنتيس وحا قبل أسافر حمية وأنا درسنا ذاك ودولة يعني هاي نكي أدي قبل المدارة التيم وعلين تصنيع حسيتو واتقيروني يعني فعل باسمين هاي مصابحي وحوي ما قبل أبهد علين توشة قبل أبهد بحوا قبل وعد هاي وحوي أبو محمد عبد الربي سؤال شو ضم بيسيان كويدين يا واحد هاي bal maxaa hadda kuu qorshaysan oo aad maagan tahay steepkan ku xiga inaad uga sii gudubto ama aad ku fikiraysaa hamigaaga inaad gaadho horta waxyaaba badan ay qorshaysan awal keligeen ahay iyo anii saaxiibkayga dalla hadda waan badanay magac awal aan lahayn waan kasii bedelnay waxaan la baxnay dhaqan sidee oo koox ahaana dhaqan sida TV oo dhalinyaro fara badan aan isku imaanay marka waxaan noo qorshaysan dhalinyaro fara badan isku yani waxaa noo qorshaysan adig koox dhaqan sidii la dhaho oo hadda intii hore ka badan baa tihiin hadda waxaan koox dhaqan sidoo intii hore ka badan oo aan rabno inaan dhaqankii dib u soo noolayno يعني فكرتنا أما رأينا كم جرتو وحسياسات ده أما سقف شخصيان لو أبارايو يعني وحسكوي ماني أو سكوي قرر ونقني أو سكوي ماني أو دقن أهان دقن كنا صون هلا دبوا صون هلا أو دقن كي سوماليين أما هان نقطة في النهان وعيهان هدي أنا كان كذا واجنو سومالي هدي يجعلي واحد مقال في النوديو wax oo itus ah hada maanta inay soo fadhiisto halla laakiin hadana wixii hadalkii aan soo koobo oo film ka dhigo way jecel yihiin marka taas aan jecelahay markaan dib soo nooleeyo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed cabdiraabi daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo barnaamijkeeni gaarka ah ee aan maanta ku wareysanaynay ugaas maxamed cabdiraabina intaas ayuu inoogu eg yahay tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan oo kale ana waxaan idinkaga tegayaa anigoo afakaada maxamed axmed ah sidaas iyo nabadgelyo